qaaradaha Afrika iyo Asia waxa bartamay qarnigii 20aad ka soo baxay hogaamiyaal ururo xorriyadoon ah oo dalalkooda u horkacay inay gaaraan madax banaani dawladeed. Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ah xogayihii guud ee dhaqdhaqaaqii dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo yiqiin Israel ayaa kamid ahaa hogaamiyaashii xorriyadoonka ee laga bartay dunida wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad. Haddaba kuma ahaa Cabdullaahi Ciise wuxuu sanadkii 1922 ku dhashay magaalada Afgooye oo dhanka koonfur galbeed kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxa iska dhalay Ciise Maxamuud Bidaar oo ka soo jeeda Hobyo iyo Mareere Diini Axmed oo ka soo jeeda Cabudwaaq. Aabihii ayaa dhintay isaga oo caruur ah waxaana korinshihiisa dusha saartay hooyadiis. Cabdullaahi Ciise wuxuu ahaa hogaamiye dabiici ah oo farac u leh hogaaminta. Wuxuu ka yimid qoys hormuud dhaqan ka dhex ahaa reerkii uu ka dhashay. Awoogiis Maxamuud Bidaar wuxuu ahaa kaaba qabiilka jilibka uu ku abtirsado. dalmareenkii Talyaaniga Luigi Robecchi Brichetti ee maray Soomaaliya oo sanadkii 1888 booqday Hobyo ayaa buugiisa xusuus qorka Soomaaliya ee Banaadir ku xusay inuu meel u dhow magaaladaas dhanka bariga kula kulmay nabadoon Maxamuud Bidaar. Cabdullaahi Ciise wuxuu ahaa nin waxbarashada ku dadaala inta badanna isaga ayaa wax isbari jiray yaraantiisii iyo ilaa markii uu soo weynaaday. dugsiga Quraanka wuxuu ka dhigtay magaalada Afgooye kadibna wuxuu waxbarashada bilowga ka bilaabay mid kamid ah dugsiyadii hoose ee Talyaaniga uu ku lahaa magaalada Muqdisho sida uu ku qoray qoraaga Smith Hebston buugiisa The New Africa. isaga oo 16 jir ayuu Cabdullaahi Ciise u wareegay magaalada Marka halkaas oo xafiiska boostada ka shaqeeyay intii u dhaxaysay sanadihii 1939 ilaa 1941. sanadkii 1941 markii ay Ingiriisku qabsadeen koonfurta Soomaaliya ee loo yiqiin Italian Somaliland iyo gobolka Soomaalida ee Itoobiya iyagoo horey u sii haystay waqooyiga Soomaaliya ee loo yiqiin British Somaliland iyo gobolka Soomaalida ee NFD ee Kenya waxa Cabdullaahi Ciise laga joojiyay shaqadii taas oo ku kaliftay inuu bilaabo hawlo ganacsi isagoo isaga dhex gooji jiray deegaanada koonfurta Soomaaliya. dhowr sano kadib isagoo ganacsada ayuu sanadkii 1944 wuxuu magaalada Beledweyne kaga biiray ururka SYC halkaas oo isku barteen dad magac weyn leh ku dhex yeelan doona ururka SYL sida Aadan Cabdulle Cusmaan iyo Sheekh Ali Jimcaale. muddo yar gudahood ayuu Cabdullaahi Ciise ku dalacay oo uu kor ugu kacay isagoo loo doortay xubin golaha dhexe ee ururka. halkaas ayuu kaga mid noqday hogaamiyaashii waaweynaa SYL ilaa markii dambe loo doortay xogayihiidii guud. sanadkii 1947 markii uu la wareegay xilka xogayaha guud wuxuu isla markiiba qayb ka noqday isbedelkii ka dhex socday habsami u socodka iyo dib u qaabeynta dhaqaaqa oo iska bedelay SYC Somali Youth Club iskuna bedelay SYL Somali Youth League. isbedelkaas ayuu ahaa kan keenay in ahdaafta dhaqaaqa uu gaaro gobol kasta iyo goob kasta oo Soomaalidu ay degto. wuxuu kaloo Cabdullaahi Ciise ku soo beegmay iyadoo quwadihii afarta ah sida Faransiiska, Ingiriiska, Mareykanka iyo Ruushka ay kaga shirayaan magaalada Paris sidii laga yeeli lahaa masiirka iyo mustaqbalka dalalkii uu gumaysan jiray Talyaaniga kuwaas oo kala ahaa Eritrea, Liibiya iyo Soomaaliya. wuxuu ku jiray Cabdullaahi Ciise 5 xubnood oo sare oo SYL soo xusheen inay go'aanka ururka hor dhigaan wafdigii afarta quwadood ee xaqiiqo raadinta ay yimid magaalada Muqdisho horaantii bishii January 1948 kadib markii afarta quwadood ay go'aanka gaarista Eritrea, Liibiya iyo Soomaaliya u wareejiyeen golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Cabdullaahi Ciise wuxuu u duulay Paris sanadkii 1949 iyadoo ururka SYL ay si weyn uga sii ambabixiyeen Muqdisho. wuxuu u sii gudbay London oo ay ku sii martigeliyeen jaaliyadii reer Somaliland ay ku noolayd magaalooyinka Cardiff, Liverpool iyo London. Cabdullaahi Ciise wuxuu London ka sii aaday Lake Success oo ahayd xaruntii ay ku tiilay qaramada midoobay ee magaalada New York halkaas oo uu geeyay go'aankii taariikhiga ahaa ee shaqayn kari waayay ee SYL ku dalbatay in Soomaaliya ay dusha ka maamulaan afarta quwadood muddo 2 sano ah oo ay dawladnimo ku gaarsiiyaan taas oo ay gadaal kaga sii dareen 10 sanadood. New York ay ahayd meesha uu ku sii taakiidiyay u doodista fikradii Soomaali weyn ee ahayd 5 qaybood ee Soomaalidu uu u qaybiyay gumaysiga oo la hoosgeeyay hal dawlad sida ku cad qoraalada yaala madxafka Ingiriiska UK National Archives ee ergadii Ingiriiska ee New York u soo direen xafiiska arrimaha dibadda Foreign Office. dadka Soomaalida ayaa xilligaas ku luqeyn jiray ninkaas cabanaya cadaanka dhexdiisa Cabdullaahi Ciise Allah caawi. muddadii uu joogay New York wuxuu Cabdullaahi Ciise la kulmay rafaad nolol xumo iyo dhaqaale la'aan
waxaana ku adkaatay inuu iska bixiyo hotelkii uu deganaa oo la oran jiray Prince George Hotel, adreeskiisu uu ahaa 14 East 28th Street, New York City. gurmad ay markii dambe u fidiyeen jaaliyadii reer Somaliland ee Mareykanka iyo ergadii Ingiriiska ee New York ayay ugu soo gashay inuu sii joogo halkaas oo howlihiisii uu sii wato, kagana sii qayb galo doodihii ka dhex socday wadamada qaramada midoobay ee ku qotamay sida laga yeelayo su'aasha xorriyadda Soomaaliya sida ka muuqata qoraalada yaala UK National Archives. kasakow ka qaybgalka fadhiyada golaha guud ee qaramada midoobay oo uu in ka badan 2 jeer u jeediyay khudbado, wuxuu Cabdullaahi Ciise Kariiste hal saac oo uu galo walba radio yar oo ku yaala magaalada New York kala soo hadlo dadka Soomaalida ee ku nool gobolka Geeska Afrika iyo adduunka intiisa kale. raadiyahaas wuxuu ka sii deyn jiray warar iyo faallooyin ku saabsan hadba meesha ay marayso, dooda ku saabsan in Talyaanigu uu kor ka xukumo Soomaaliya oo uu maamul dawladeed gaarsiiyo iyo in hawshaas lagu wareejiyo wadan ama wadamo kale. afkaartiisii mintidnimada lahayd ayaa keentay in hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ay kaga shakiso inuu xambaarsan yahay fikir shuuci ah, sida ay ku qortay taariikhyahanada Carol Anderson buuggeeda Bourgeoisie Radicals, The Nakab and the Struggle for Colonial Liberation 1941-1960. halganka xorriyadoonka ah ee Cabdullaahi Ciise kuma koobnayn siyaasad oo kaliya ee waxa ku dhex jiray mid aqoon ku dirir ah. wuxuu xiriir dhow la samaystay caalimkii, qoraagii iyo taariikhyahankii madowga Mareykanka ee lagu magacaabi jiray William Edward Dubois, ka uu u fidiyay taageero cilmiyeed ee dhanka gumaysidiidka ah. Cabdullaahi Ciise wuxuu kaloo si joogto ah New York uga soo saari jiray qoraallo isla qori jireen nin reer Somaliland oo la oran jiray Ismaaciil Xasan. qoraaladaas oo ay kaga waramayaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed, qaasatan sida aan raaliga looga ahayn in Talyaanigu mar kale maamulo Soomaaliya iyo sida xukunka gumaysiga Ingiriiska uu cadaadinayo Israel oo ay isku xumaadeen wixii ka dambeeyay 1948. qoraaladii uu sameeyay Cabdullaahi Ciise intii uu joogay New York ayaa waxaa ka mid ah 2 buug oo yaryar oo uu ugu doodayo dadweynaha ku hoos jira gumaysiga gaar ahaan Soomaalida, kuwaas oo ciwaankoodu uu yahay United Nations to Sponsor Survival of Colonialism or United Nations to End Colonialism iyo United Nations for Europe or United Nations for the World. waxay qoraaladan isugu jiraan dhaliil iyo dhaleecayn ku qotanta sida qaramada midoobay ay u wajahaysay mushkiladda ku saabsan cidda xaq u leh inay maamusho wadamadii gumaysiga ku hoos jiray. qoraaladan oo ay ku dhex jiraan farshaxanimo iyo fikrado cusub ayaa Cabdullaahi Ciise waxay la meel dhigi doonaan mufakkiriintii xorriyadoonka qaaradda Afrika sida Leopold Sédar Senghor, Felix Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah iyo hogaamiyaashii kale Afrika ee qoray qoraalada gumaysi la dirirka ah. qayb ka mid ah qoraalada uu qoray Cabdullaahi Ciise intii uu ku sugnaa New York ayaa waxay hadda yaalaan goobta gaarka ah ee wax lagu ururiyo ee jaamacadda Massachusetts qaybteeda Amherst ee Mareykanka. bishii November 1949 markii golaha loo dhan yahay qaramada midoobay uu go'aamiyay in Talyaanigu Soomaaliya maamulo muddo 10 sanadood ah, muddaas cayiman uu ku gaarsiiyo xorriyad taam ah iyo maamul dawladnimo oo ay dhisan yihiin hay'adaladii dawliga ahaa, ayaa Cabdullaahi Ciise oo ka murugaysan go'aankaas wuxuu sanad kadib dib ugu noqday magaalada Muqdisho oo uu ka soo maqnaa muddo dhowr sano ah. wuxuu u ekaa nin aan ku guulaysan ujeedkiisii ahaa inuusan Talyaanigu dib ugu soo noqon dalka. markii uu ku soo noqday Muqdisho ayaa khilaaf siyaasadeed oo ka dhexdhacay hoggaanka sare ee Israel wuxuu kalifay in Cabdullaahi Ciise uu xaraaq kaga maqnaado kulamada ururka ilaa markii dambe lagu guulaystay in dib loo soo carceliyo. khilaafku wuxuu ka dhashay madaxda Israel oo isku mari waayay sida loola tacaamulayo maamulka cusub ee Talyaaniga ee la magac baxay Office Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia. qaar ka mid ah madaxda Israel ayaa ku doodayay in Office aysan ka duwaneyn xukunkii hore ee fashiistada Talyaaniga ee Ingiriisku meesha ka saaray, halka qaar kalena qabeen in maamulka Office loo arko oo loola macaamilaysa ka duwan sidaas. labada dhinac Israel waxay aakhirkiis la gaareen xal mastuur, waxayna ku heshiiyeen in wada shaqayn dhow lala yeesho maamulka Office si aan loo luminin waqtiga loo xadeeyay in dawladnimo lagu gaarsiiyo Soomaaliya. heshiiska Israel dhexdeeda waxaa ka shaqeeyay dawladda Masar, iyadoo laga ambaqaaday heshiiskaas ayaa sanadkii 1954 waxaa la qaban qaabiyay doorashooyinkii u horreeyay ee dawladaha hoose, taas oo uu ururka Israel ku guuleystay. 2 sanadood kadib sanadkii 1956 ayaa haddana waxaa la qabtay doorashadii xisbiyada siyaasadeed waxaana ku guuleystay isla Israel. governatoriyada Talyaaniga ee xilligaas Enrico Ancelotti ayaa soo jeediyay in xisbiga guuleystay uu soo xulo ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad daaqili ah, waxaana ururka Israel si aqlabiyada u soo doorteen Cabdullaahi Ciise oo 29 February 1956 noqday ra'iisul wasaare u horreeyay ee yeelato Soomaaliya. wuxuuna muddo gaaban gudood ku soo magacaabay xukuumad ka koobnayd 5 wasiir. mar kale ayaa Cabdullaahi Ciise loo soo doortay ra'iisul wasaare kadib doorashooyinkii xisbiyada ee dhacay 1959 ee uu ku guuleystay isla ururka Israel. bishii July sanadkii 1960 markii ay Soomaaliya qaadatay xorriyadda
ayaa madaxweynihii cusbaa aadan cabdulle cusmaan wuxuu iska dhaga tiray go-aankii iyo tala soo jeedintii golaha dhexe ee Israel oo Cabdullaahi Ciise si buuxda ugu soo sharaxday jagada ra'iisul wasaaraha. aadan cabdulle ayaa ku dooday inuu isbedel ku dhisan xirjajab qabiil kusoo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub, taas oo baalmarsanayd ahdaaftii ay ku dhisneed Israel ee lagu diidanaa qabiilka iyo qabyaaladda oo la dhexgeliyo nolosha bulshada iyo siyaasadda. waxay Soomaaliya ajnabi badan ku ayd arrin ama kaag ah in Cabdullaahi Ciise uusan noqon madaxweynihii jamhuuriyadda cusub ama ra'iisul wasaaraheedii sida ka dhacday wadamadii kale ee qaaradda Afrika ee ra'iisul wasaarayaasha xukuumadda daaqiliga ay halkooda sii joogeen ama u sii dalaceen madaxweyne sida Jomo Kenyatta, Hobby Boyne, Nkrumah iyo kuwa kale. sababtuna waxay ahayd iyadoo dastuurkii cusbaa ee Israel ee aan markaa la ansixin lagu sii qoray laba arrimood. kow, in gudoomiyaha baarlamaanka daaqiliga uu noqonayo madaxweynaha ku meel gaarka ah, iyo labo, in madaxweynuhu uu noqdo da ahaan 40 sano jir. markii hore waxaa xusid mudan inay guddigii farsamada dastuurku qoreen inuu madaxweynuhu uusan ka yaraan 38 sano, laakiin markii la horgeeyay fadhiga golaha baarlamaanka daaqiliga ayaa la dhexgeliyay talooyin diimeed oo laga dhigay 40 sano jir oo ahayd xilligii risaaladu ka soo degtay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. labada arrimood waxay caqabad ku ahaayeen in Cabdullaahi Ciise uu ku soo boodo xilka madaxweynaha. waxaa intaas sii dheer Cabdullaahi Ciise qudhiisa ayaan isku dayin inuu wax ka bedelo in dastuurka loo ansixiyo siduu isagu doonayo, sida ka dhacday wadamo badan oo Afrikaan ah oo si qasab wax looga bedelay dastuurkooda, kuwa oo markii dambe ay hogaamiyaashii xorriyadoonkooda isku bedeleen diktaatooro kalitalis ah. Cabdullaahi Ciise oo aaminsanaa fikradda in xukun dimuqraadi ah uu bedelo kan gumaysiga ayaa iska diiday inuu farageliyo howlaha qorista dastuurka oo la bilaabay sanadkii 1959 isaga oo ra'iisul wasaare ah. xorriyaddii Soomaaliya oo ku beegneyd Israaciil, Soomaaliya iyo Somaliland kadib wuxuu Cabdullaahi Ciise noqday wasiirka arrimaha dibadda sanadihii 1960 ilaa 64 iyo wasiirkii caafimaadka 1964 ilaa 1967. Juulaay 1967 ilaa Abriil 1969 ma qaban wax xil ah ee dhanka xukuumadda oo aan ka ahayn xildhibaan. hase yeeshee xukuumaddii u dambeysay ee rayidka ee May 1969 ilaa Oktoobar 1969 ayuu ka noqday wasiirka ganacsiga ilaa uu dalka ka dhacay inqilaabkii militariga. wuxuu bilowgii hore ku jiray siyaasiyiin loo xiray arrimo siyaasadeed, waxaana xabsiga laga sii daayay 1973. sanad kadib 1974 ayaa hogaamiyihii militariga Saraayaagaas Maxamed Siyaad Barre wuxuu Cabdullaahi Ciise u magacaabay safiirka Soomaaliya ee Sweden, xilkaas oo uu hayay ilaa markii uu iska casilay horaantii 1983. Cabdullaahi Ciise ayaa xilliga ka dambeeyay si iskii ah isu geliyay howlgab, mana uusan ka qayb gelin howlihii ka socday Yurub iyo Mareykanka xilligaas ee looga soo horjeeday taliskii militariga sida ay yeeleen rag isaga la waqti ah sida Cabdirasaaq Caaji Xuseen. Cabdullaahi Ciise wuxuu u guuray markii dambe uu iska degay magaalada Roma, halka oo ahayd meeshii uu ka wacan jiray inuu tago xilligii uu la dirirayay gumaysiga Talyaaniga. sidaas oo kale ayaa hogaamiyaashii xorriyadoonka Afrika waxay ku geeriyoodeen caasimadaha dalalkii gumaysiga ay la soo dirreen sida Julius Mawalimu Nyerere oo ku dhintay London. intii uu siyaasadda ku dhex jiray iyo markii uu howlgalka noqdayba wuxuu Cabdullaahi Ciise nin aad loo jecel yahay oo ku sifoobay asluub anshax iyo afgaabni. wuxuu caado u lahaa inuu qabto xil kasta oo looga dhiibo dalkiisa. qof kasta oo uu gala xafiiskiisa xilligii uu madaxda ahaa wuxuu ku salaami jiray istaag ixtiraam awgi. ciladiisu waxay inuu jeclaa inuu qof walba qanciyo. wuxuu ahaa nin markuu hadlayo hadalka soo celceliyo oo sheegsheega laakiin qalbi wanaagsan leh. Cabdullaahi Ciise isagoo da'diisu ay tahay 65 sano jir ayuu ku dhintay magaalada Roma 11 March sanadkii 1988. meydkiisii oo calanka Soomaaliya la soo huuyay ayaa laga soo dejiyay magaalada Muqdisho, iyadoo soogotinta meydkiisa ay isugu soo baxeen shacab fara badan. waxaa lagu aasay qabuuraha qaranka iyadoo tacsidiisa ay sida wadajir uga qayb galeen aadan cabdulle cusmaan iyo Maxamed Siyaad Barre. Thank you.